Soomaaliyeed oo saas u taagan oo indho waaweyn loo indhaha saas kugu soo eegaya inaa laga raaco nin cadaan oo gaalo sidaas walaal waa yar xanuun laakiin ayaa meesha taala كل فيلم وحوي دارات ما أنا كستهلي Soomaaliyeed ama hawiyaha ahaada ama saqaari haduu garab uga soo baxdo way gowracaan koodana waxay rabaan in lagu soo saaro Soomaalinimo horta anu qadaan isaaqnay family cuqdad lambar 1 ayaanu nay bari hore Soomaalida dadkii ugu hore cuqdad lagu beeray baan anagu alxamdulillah waan leen ilaahayna noo siyaadiyo waxa ku saaray hawiyihii aydin sirsiri jirteen aydin daari jirteen Soomaa marka danta leedihiin daaroodow adu daari jirteen Soomaaliyay tooso way fahmeen waxay idin ku leeyahay inaan Arsenal kooyadiiba ku jira daarood the guest to guest waa lagu taagay halka dawaad ku qirleed bal iska raba حتى إسكان بين دمات أول بشديد دوا شوعا كله باورك حمول كان تشكى أماري جاران جارو حمل كبو. Assalamu alaikum. It's Mama Leila. I have to come through Somali بان كشيك الدونا فيديو كنت حتى Somali تايد لقيس وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشرك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Congrats to Zohan Mamdani. I made a video about him, video Bankasubi, by the way. And I don't think he is what he says he is, but only time will tell. But anyway, this video will be in Somali. Salam alaikum, Somali, Muhammad wa idin salamay. Haddad Somali ku hadasho dhagaysa videogan ilaa imeesha ugu dambaysa. Because waxaan ka hadli doonaa qabyaaladan qurunka ah oo na baabi'isay oo in naga soo kaxaysa waddankeennii quruxda badnaa waddankeennii baabi'isay dadkeennii baabi'isay ilaa iyo maanta sidaan isku haysanno waa qabyaalad wax meesha na soo dhigtay mushkiladdu waxay tahay kuwii ku soo koray dibadda aniga ka mid ahay aniga hadda 50ga sanad baa iiga haray anigoo yar dadkii markii waqooyi lagu soo duulay and qoftan horta waa tolkii aniga horta isaaq baan ahay laakiin isaaq ma sheeganayo maanta Soomaaliyaan sheeganaya. Okay, number 1. Number 2, she is funny but she's 100% waa misguided waa absolutely waxay ku hadashay waa wax aan laga naxo aan laga xumaado haddaad tahay qof Soomaali ah oo fahamsan xaaladda Soomaalida aan ku sugannahay. There are no other black people like Somalis. I'm going to be honest with you. Somali are the only people who help each other, regardless of qabyaalada tahay. But at the same time, annaga Ilaahay baan isku keendiray aniga horta haddaan u fiirsaday dhanka ruuxaaniyadda spirituality markaan u fiirsaday dhanka qabyaaladda waa waxan waa demon waa jinni wallahi waa jinka naga soo raaca qabyaaladana waa waxa la yiraahdo qariin ilaahay wuu noo sheegay wuxuu dhahay qof waliba qariin baan raacsiiyay qariinka waa nafsil amara waa nafsadan egotistiga ah waa nafsadan shaydaanka la socoto mar waliba rabta inay jidka ka dhumiso self destructive nafsadan ma aragtay dadka suufiyiinta ee mar walba la dagaalamaan ee u baxaan meel gooni intay u tagaan digriga akhristaan ee cibaadaystaan siday naftaa u cadaadiyaan ay shaydaanka uga adkaadaan marka qabyaaladda waxay la socotaa waa jinni naftan qariinka ah la socda taa ogaada koowaad wax nagu kacaya wax nalagu soo qof waliba Soomaali markaan u fiirsaday waxaaba hoosta uga qufulan wuu ku kacayaa hal mar wuxuu u baahan yahay hal qof oo instigate garay qof walba xataa qofka si walba u fiican yahay qabyaalada u qorin aniga hadda waxaan ka imaaday guri laba qabiil ah hooyana waa hawiye aabana waa isaaq laakiin qabyaaladna lama soo barin waagaan yareen I remember eedooyinkay iyo adeeraday markay yimaadaan qabiil noo sheegaan hooyo waxay dhigi jirta qabiilka iga barina caruurta laakiin one thing I really appreciate hooyo say smart ahayd maasha Allah ayadaana u weligeed u jajabneed dadka familiga u tolkeena
aadayna u jeclayd laakiin at the same time qabyaaladda waxay u diidi jirtay because waxay ogeyd dhibaatada ay leedahay qabyaaladda waxay kaa dilaysaa ruuxaaniyadaada oo ilaahay aa kugu xirnaan karta qalbigaaga purekaaga wax qof waliba quluubteenna waxaa ku jirta niyadda ama wadnaheena waxaa ilaahay ku abuuray wax aad pure ah oo aad saafi u ah uu ilaahay jecel yahay waxaasna waa wax ruuxaaga ku xiran qabyaaladda marka waxaas bay madoobaysaa because waxaad indhaha isaga xiraysaa adigoo og inuu qofka inaad ku raacaysaa qof qabiilkaaga xataa hadduu qaldan yahay waa waxyaabaha aan aniga ka yaabay markaan u fiirsaday aniga ma dhahayo qofka tolkaaga ha u hiilinin markii laga gardaran yahay because waa sax ilaahay wuxuu kuu siiye family iyo qaraabo sidaad u garab qabatida u hiilisid markay u baahan yihiin dhibaato laakiin ha ugu hiilinin dulmiga ha ugu hiilinin gardarada ha ugu hiilinin qabyaaladda ha ugu hiilinin waxa xun aniga takalaan idin sheegaya waxay tahay Soomaalideena markaan u fiirsaday dibadda markii loo soo baxay waxaan arkay waxa dadka ugu badan oo dhibaatadan haysato inay ka tahay dumarka naagaha hooyooyinka ayaa caruurta ku tallaalo waxaan qabyaaladda la yiraahdo caruur yar waxaad arkaysaa oo say wallahi oo ku dhashay dibadda oo inay qabiil shaqo ku lahayn ay ahaan lahayd supposedly inay qabiil shaqo ku lahayn laakiin waxaad arkaysaa caruurta yareed oo qabyaaladda lagu soo koriyay oo qabiilkaaga markay ogaadaan kuu xanaaqaaya caro kuu tutsaayo why is this happening hooyooyinka Soomaalida waa backbone hadda labadan gabdhood sawirkan hadda ma aragtay aan ku soo daray meesha videogiisa waan soo gelin kari waaye it was difficult for me inaan geliyo because haters ba aniga ihagareeyay telefoonkeyga wayna isqaranayaan kuway yihiin ma doonayaan inaan soo bandhigo waxaan rabay inaan soo bandhigo but anyway sawirka waa laba gabdhood oo reer Westerville Ohio ah labadaba waxay u tartamayeen school board memberka oo aad midna tahay hawiye midna ay tahay daarood laakiin school board memberka saddex qof ayaad xaq u leedahay inaad u vote karaysid laakiin Soomaalida no ayagoo awood u leh inay labada gabdhoodba u vote gareeyaan waxay u kala baxeen hawiye iyo daarood why Soomaaliyay why hadda Zoran Mamdani waa nin hindi oo shiica muslim ah oo reer Uganda ka soo jeeda generations waa dadka Ingiriiska u geeyay hindida Ingiriiska geeyay Uganda oo laakiin New York ku soo koray ku soo barbaaray maanta waxaa loo doortay New York inuu mayor u noqdo dadka sida ugu faraxsan yihiin waa aragtaan dadka reer New Yorker-ka ah ummadii oo dhan baa sida ugu faraxsan annaga Soomaali haddaan nahay annaga dad firfircoon nahay there is no other black people like Somalis I'm telling you this what facts Somalida they help each other they're not even Indians don't help each other Somalis they help each other regardless of their tribe when we come outside of Somalia or Somali coast we help each other no matter what tribe you come from lakin Somalida we stick together and we help each other and we love each other but qabyaaladda marka la soo dhex dhigo waxaan nahay wax bahla camal waxaan noqonaa sidii waraabaha oo kale ma aragtay waxaan noqonaa xayawaan camal maskaxdan oo lizardka ah maskaxdan survivor lizardka ah oo nagu soo boodaysa marka qabyaaladda la soo dhex dhigo waa inaan ka adkaanaa walaalayaal waa inaan ka adkaanaa sida uga adkaanaynaana waa maxay waa wacyi waa awareness in la geliyo qaasatan gabdhaha because ayagaa hooyooyin noqdo ayagaa inta badan ku abuura caruurtooda jiilalkooda soo socda aniga hadda hooyada aad baan ugu mahadceliyaa inkastaa hadda isku meel aan joogin aad baan ugu mahadceliyaa because cuqdad qabiil ah kuma soo korin anigoo weliba sidaas ay tahay qabiil dartiis loo xusuuqay dadkan kasoo